بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا قدوبادا ورارك راديو وداك عاويدينها يكوود وقوة وين رئيس وزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حمزة عبد البر وضاف ريشير لوغا هالليي دورك علومة اي كل يهين نبدا iyo dib u heshiisiinta gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo ay wehliyaan ku xigeenadiisa oo kulan la qaatay guddi ku matalayay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya shirka baarlamaanada adduunka ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Saalax Axmed Jaamac oo xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha dawladda Sweden ee Soomaaliya madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dini oo xarunta wasaaradda amniga Puntland kulan kula qaatay saraakiisha amniga dawlad goboleedka Puntland ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya oo howlgal ka sameeyay qaybo ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose qaramada Midoobay oo shaacisay tirada dadka ku dhintay roobabkii ugu dambeeyay ee ka da'ay qaybo ka mid ah gobolada dalka gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka oo kulan la qaatay madax ka socotay hay'adda WFP intaasina waxay ahaayeen qodobadii wararka ugu waaweynay ee raadiyo wadaag